waxaan ka codsanayaa marka hore horta wasiirka warfaafinta ee Somaliland ina koore oo xalay toole si wanaagsan u hadlay isagoo hiilinaya hooyooyinkii lagu gafay ee laga gafay TV-ga xuna UNICEF leeyahay ma karabe UNICEF iyo waxba la yiraahdo la yiri TV-ga waxaan ka codsanayaa in wasiirka warfaafinta kuna xoojinaya haddii mar dambe TV-gaasi uu keeno wax hooyada ku ligdiya oo hooyadii inankeeda kala firdhinaya oo diinta islaamka ogolayn oo dhaqanka Soomaaliyeed suubanay ogolayn oo dhaqanka Somaliland ogolayn oo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ogolayn inan yaroole hooyada eriyo aniga ii kaalay mar dambe hadday soo daayaan albaabada u xidha shacabkan la hadlaya mar dambe haddii ay waxaas oo kala keenaan imakana u jeer dhaafa waa u digaysaa sidii wasiirkuba ugu digay wasiirkana aad baan ugu mahadnaqayaa qofku waxa wanaagsan uu sheego lagama xaqiro ninka hadday saysan ina koore war raggan sayno dhowr jeer baan ku tufay laakiin xalay toole hooyo dhan buu hiiliyay hooyadii iyo hooyadeed kale iyo hooyadii Soomaaliyeed oo dhan wuu hiiliyay tii Somaliland markaa ninku waxa la yiri xaji Cabdikariin Xuseen baa wuxuu yiri الله ونحريستو دنبيجيس يكي والدين تيسبا الله دافع حاج عبد ورابه قبرك الله ونوره نكسيد وناكسن وخله المادير بان نهيبور حالي ترى نقول إنا كوره المابتمان ونقولنا إلا نور بحنتا المابتمان وهينونا اللي أحمد بان المابتها إلا سكونه والنور أحمدي المابتمان ونقولنا وسير كحالي وايو هو يديو نبوه ليه وحيري مركا أنا وحكو سوقيني يوم تي فيجا يوسف ريا haddii mar dambe aanu aragno adigoo waxaasoo kala duubaya haddaad mar dambe noola timaado naageero dhaqdhaqda haya haddaad noola timaado naageero luqluqda haya haddaad noola timaado nacas miidhan oo halkaa intuu soo fadhiisto odhanaya hooyada qiimaha badan hooyada qur-aanka 3 jeer lagu sheegay hooyada karaamada iyo sharafta leh hooyada qiimaynta iyo dunida gebigeeda hooyaa iskale waxa inan adduunka ku nool waa hooyo dunida gebigeedana hooyaa iskale hooyada haddaad mar dambe soo hadal qaadaan Yuusuf Ray ballan waxaan idinku qaadayaa in liid jijibiyo waxa meesha ka shaqeynayeen la dilaba dhagax lagu dilaba mar dambe yaanaan id arkin waxa barnaamijyada soo deynaysan soo daaya waxa ay ka shaqeysanaysan ka shaqeysta laakiin kama shaqeysan kartaan ray mana soo dhigi kartaan hooyada hal la eriyo inan kuna inanta hooyadeed hooga fasax qaado wax aqligeega maraya iyo wax diinta islaamka ku jira iyo wax sheekh Umar baa yaabay sheekh Dirir baa yaabay sheekh Mustafa yaabay culimadii baa yaabtay reer Burca yaabay gaaladii baa yaabtay annagii baa yaabnay ummadii baa yaacday mar dambe yaanaan arkin hadday mar dambe waxaasoo kala keenana shacabka waxaan ka codsanayaa idinkoon cidnaba weydiinin halku ku yaala xafiiskaasi way soo fartaysataan dadka joogana sooba qaadataan mar dambe yaanaan arkin idinko hooyo hadal haya mar dambe idinko hooyo hadal haya yaanaan arkin naagayro riwaayadana loo soo fadhiisinina ina yaro xuno nacasana haloo soo fadhiisinina wasiirka warfaafintana aad baan u mahadnaqayaa weligay anigu ragga ma xaqiro weligay ninka ma xaqiro markuu xubinka hadalka helo iyo markuu gobonimada helo lama xaqiro ninka idinko isaya ninku waa kulmiye waa saynaa ninku waa xukuumadooda xukuumadahan iyo siyaasadaha waa saynaa laakiin si xagga hooyada xalay talo waxa siiyay bilad baan siiyay anigu hooyo dhamina xalay way ku ducaysay ina koorow hooyo dhami xalay way ku ducaysay ma garanaysaa ilaahayna dembigeedii iyo kii waalidiinteedaba hooyaha dhaafo dhabtaanu saaraynaa qalbigaanu ku haynaa jannadaanu ugu ducaynaynaa jannadii firdowsaanu ugu ducaynaynaa mar dambana yaanaan arkin waxaasoo kale bilaa dhaqanka mar dambana yaanaan arkin waxaasoo kale dadka loo soo daynin mar dambana yaanaan arkin in hooyada la fogeeyo inan yar ay hooyada fogeyso waxaasoo kalena tiifiyada ha ka soo daynina carruurana ha naga maqashiinina managa eedadii baanaan nicin adna hooyadii baad sheegaysa managana leedahay safiya guuranac war mawliid mawlax baad leedahay safiya guuranac war madiimaan ibraahim baad leedahay hooyadaa nac oo inan yar ka raaco gabadh yar ka raaco shalay isbarateen waxaasoo kale ha la imanina waxaasi wax dhaqana maaha wasiirkana aan sayno day kulmiyaha noqday laakiin wasiirka waan hambalyeynaya waxaan ku hambalyeynaya hooyo dhan buu hiiliyay TV-gani waa waxa weeyaan TV-ga kaliya hooyo dhan ka naxiyayba hooyo dhan buu ka naxiyayba
annagii buu naga naxiyeyba waa maxay mawliid weylax iyo baabulahi baa labadoodii hooyo eriyayo markaasay laba habloodoo yaryar ay guursadeen buu ay ka raaceen waxaas ma caqliba annagaa safiya guura iyo weris cali ka raaci karna inan yaroon shalay barannay madaxa iyo xinaaba haddayna u marinayn way iska tegaysa waraad baan idin islaamaya halkaa waxaan kaga tegayaa wasiirka waanan ugu mahadnaqayaa wasiirka waxaan leeyahay tvgaasi iyo tviyada kale iyo honkable tv iyo waxa tv adduunka jira haddii ay wax xadka ka dhaafsan soo daayaan hadday wax ummadda soo dhaafsan ay soo daayaan haddii wax dhaqanka hooyaba ku suntanba ay soo daayaan wax ku wanaagsan mooyaane marka soo fadhiisanaysaan hooyada waa ina 3 jeer buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annaguna waxaanu ku leenahay 10 jeer waa inaad hooyada xayeysiisaan tviyadu wayna hooyada mudnaanta siisaan wayna hooyada karaamada siisaan wayna hooyada sharafta siisaan wayna hooyada cisi siisaan meel kastoo naga maqlaysaan dumarowna kula soo raaci mayno kula guursan mayno kuna fadhiisan mayno geelna kaa bixin mayno arina kaa bixin mayno haddaad hooyaday necabtay anna waan ku necabay haddaad hooyaday jeceshay anna waan ku jecelay haddaad reerkayga necabtay aniguna waan ku necabay anigu reerkiinana ma necbi hooyadaana ma necbi walaashaana ma necbi walaalkaana ma necbi aabbahaa ma necbi hooyadaa ma neci doono walaalkaa ma neci doono laakiin qof kasta oo dumara oo inanka hooyadii diidaay adigana nacdal maad sheegaysaaye waxaa ku yidhi foosta gobolo u weyn baa tay hadda ma garanaysaa oo diyaarso warqadaada waa diyaar anaaba ku yidhiba sheekh dir balaa ka soo horraynayaba meel kasta oo ay marayaan ta tiraahdo sodohda ma ogoli oo hooyada ma ogoli oo inanka hooyadii ma ogoli meel kastoy maraysaba way furantay saacaddaasay furantay ilaa aakhira ayaad furantay waar nin walooba ta tiraahda sodohda ma ogolid nin walooba waad furaysaa ilaa aakhiraad furantay ilaa imakaad furantay mawlid weylax waa nin walooba waa inaad tirahda way furantay way bartaasay ku furantay maxaa kuwii halkaa ka hadlayay ilaa qiyaamahay furayin haddayna ka toobad keenin ilaa qiyaamahay furantay ta tiraahda safiya guuraan diidaya mawlid weylaxow safiya guuro eedadaya baan diidaya safiya guuraan diidaya yaa dabeetana hooyadaa safiya guura yaan arkin waris cali yaan arkin inanka hooyadii yaan arkin oo yaa ifkana keenay hooyadii baana keentay ifka yaana keenay yaa dhakada yar noo sameeyey yaa sida sanka noo qorqoray yaa subaga noo mariyey yaa na soo korsaday yaa naga warhayey yaa adduunkana keenay hooyaana keentay waa iska kaaya soo raacdoon ma garatay hooyaana keentay adiguna beritoole hooyaad noqonaysaa dabeetana inankaaga gabadha kaa kaxaysata ka warran inantaadan yari inankaaga dhasho eed foolato ee aad ku curato bal inankaaga gabadha kaa kaxaysato miyaada goshay adigu marka lagu leeyahay inankaaga aad dhashay ee aad foolatay ee aad culayska dogta kugu hayay yacnihii aynaagiina ku tiraahdo hooyada ma arki karo miyaanad naxdeen miyaanad oydeen naagtaada halkan ka hadlaysaa ee yaray miyaanad oydeen ilmaha marka lagu diido miyaanad oydeen miyaanad naxdeen miyaanad barowrateen miyaanad ba'deen miyaanad jabteen mar dambena yunisefrow iyo waxaaga aniguma aqaane mar dambe wax hooyada ku wanaagsan oo heesiyaad raawin baad soo daynaysaaba hooyoy la-aantaa miidhan baad soo daynaysaa haddii kale waad iskaga guuraysaa somalilan waana iskaga guuraysaa meelaha ummadda soomaaliyeed joogto meel kastoo muqdishona waa lagaa xidhayaa hargeysana waa lagaa xidhayaa soomaaliya o dhan waa lagaa xidhayaa ingiriiska waanu kaa ashkataynaynaa meel walba waanu kaa xidhaynaa waxaasoo kale ha soo daynina intaa iga gaadhsiiya kuwa yunusefartan la sheegaya leh mar dambe haddaanu aragnay idinkoo naagiro dhaqnaqda haysa sodohda ma doonayo nin baad leedahay hooyadii ma doonayo laa inaanu halkaa midhkaaga dhufan culimaduba ha yaabtee oo seediyaashay ha yaabaane naga ilaali waxaasoo kale taa halkaasaan kaga tegaya waxaan u soo hooyoo dhanna meel ay joogto waxaa la qaadato hooyoo dhammi meel ay joogto tii dhimatay iyo ta noolba qabriga allaha ku nuuro dembigiinana allaha dhaafo hooyo kii waalidiintaada allaha dhaafo hooyo maalinta yowma alqiyaama cadaaba ilaahay kaa digo hooyo inta nebiga gabadha la harsata allaha kaa dhigo hooyo ceebtaada ilaahay ha asturo hooyo abaalkaaga nina gudi maayo gudi mayne ilaahay abaalkaaga ha gudo hooyo ilaahay ha ku xafido hooyo tii dhimatay allah u naxariisto hooyadii dhimatay hooyada kalena way ka daba dhimanaysaa iyana allah u naxariisto inaguna waynu dhimanayna allah u naxariisto hooyo oo dhanna waxaanu leenahay xaal qaado
hooyoodna waxaanu leenahay jannati firdawsi allaha ku geeyo hooyo soomaaliyeedna waxaanu leenahay qabriga allaha ku nuuro hooyo soomaaliyeed waxaanu leenahay gabadha nebiga oo la harso calayhi salaatu wasalaam maalinta yawmal qiyaamah dumarka nebigu halkay jannada ka galaan ayuun baad ka gelaysaa if iyo aakhirana allaha ku xafido if iyo aakhirana allaha ku ilaaliyo if iyo aakhirana ilaahay ku asturo if iyo aakhirana dembigaaga iyo kii waalidiintaadaba allaha dhaafo hooyo ilaahay ku asturo hooyo ilaahay ku ilaaliyo hooyo kuwa meeqaanka liita ilaahay nagama dhigay inan yar ka raaca oo riwaayada ilaahay nagama dhigo ilaahay hooyo dhan ha naxariisto tii dhimatay iyo tii noolba ilaahay hooyo sharafta iyo karaamadii iyo cisiga ha ku dilo ilaahay jannati firdawsi ha geeyo ilaahay jannada ha ku macsuumo ilaahay hooyo ha ilaaliyo warina rago hadday ku tiraahdo naagtaadu inan yari hooyada ma arki karo bartii taagan tahay warqada ugu gee way furan tahay labada nayma kuwa nimka hadlaya hadayna ka soo noqonna saacad kasta oo aan arko sawirkooda way furan saacad kasta oo sawirkooda arko way furan kuwa ka hadlay saacad kasta oo sawirkooda arko way furan nin kasta oo imaqlayo saacad kasta oo aragto warqada si xaqa min allah ka siiya xaqa min allah ma aragto ka siiya waxba ku fogaan ma hablaha halkaas ka tagaya wasiirkaana waa soo dhaweynayaa la yiraahdo ina kore sida wanaagsan oo hadlay yiri UNICEF waanu xirayna haday waxa soo kala keento iyo TV-yada kaleba waxa bilaa dhaqanka iyo waxa bilaa akhlaaqda midna ma keenina